السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أصحابتي qaaliga ah kusoo dhawaada duco channel. waxaan ka hadli doonaa haddii uu Ilaahay ka raali noqdo waxaan nagu soo dhawo fooda nagu soo hayso Ilaahay nabadda nagu gaarsiiyay bishii Dhulhijja maalmo kooban ayaa ka haray bishaas ayada waxaa ku jira 10 bari ee sanadkoo dhan ugu fadliga badan ee Ilaahay ugu jecel yahay waa 10 maalmood oo maalmaha sanadkoo dhan ugu fadli badan Ilaahay agtiisana loogu jecel badan yahay ramadaanka waa bisha bilaa ugu khayrka badan haddana bisha ramadaan maalmaheeda waxaa ka fadli badan oo laga jecel yahay 10 bari habeen ahaan yani ramadaanka yaa khayr badan oo waxaa ku jiro habeenkii Laylatul Qadriga laakiin waa maalmaha waxaan ka hadlayno 10 maalmood ee sanadkoo dhan ugu wanaagsan ugu fadliga badan Ilaahayna ugu jecel badan yahay ayaa ku jirto bishan horteena ah waxaan rabnaa markii inaan ka hadalno bishaas ayada ah soo socota haddii Ilaahay nabad nagu gaarsiiyo dambiga ka dhaco wuxuu ka weyn yahay dambiga ka dhaco bilaha kale yani 10kaas bari wixii dambi hod sameeyso wuu ka xoog badan yahay oo ka miisaan culus yahay dambiyaha aad bilaha kala sameeyso waxa laga yaabaa in yani dambigu isku mid yahay tusaale ahaan been baad sheegtay beenta aad sheegayso bishaan aan hadda joogno iyo beenta aad sheegi doonto 10kaas bari yani 10kaas bari gudahood beenta aad sheegto taas xoog badan oo miisaanka ku culus oo yani dhib badan marka 10kaas bari qofka waa in uu is ilaaliyaa dambiga uu galayo haba dambi yar ha ahaadee wuxuu ka xoog badan yahay dambiyaha bilaha kale ka dhaco Ilaahay waxa uu yiri asagoo dadka la hadlayo oo faraayo in maalmahaas quruxda badan Ilaahay agtiisa loo jecel yahay fala tadlimu fiihinna anfusihim nafihiina ama naftiina ha dulminina waxa dulmi ah in aad maalinkaas yani waxyaabo xumaan ah sameeyso dambiye caadiga ah ee hore u soo sameyn jirtay inaad sii wado ama aad maalmahaas ka basii darto shaydaankana maalmaha khayrka badan ee Ilaahay uu jecel yahay dambiga uu culus yahay wuxuu kugu dardargelinayaa oo kugu dhiirinayaa inaad sameeyso waxyaabo Ilaahay ka fogeeyo qofka marka waa inuu iska ogaadaa Ilaahay wuxuu leeyahay fala tadlimu fiihinna anfusihim naftiina ha dulminina haddaad indhahaada waxan ku egto adiga unba isdulmiyay Ilaahay waxba u dhimi maysid sidoo kale beenta yani wax kasta oo dambi ah adiga dulmi kugu tahay oo aakhirana meel xun ku geynaysaa adduunkana caqabad kugu noqonaysaa waa in qofka uusan naftiisa dulminin oo dambiyada uu iska ilaaliyaa 10 maalin Ilaahay agtiisa laga jecel yahay sanadkoo dhan ugu fadliga badan haddaad xumaan sameeyso waxaad iska dhumisay fursad weyn oo ah maalmihii uu Ilaahay jeclaa ayaad sameysay wax asaga cara gelinayo taasna waa arrin khatar ah waxaan markale idin xasuusinayaa in 10kaas bari nagu soo foodleh qof kasta uu isjiraa wax khayr ah uu sameeyaa camalada wanaagsanna waa maalinta loogu jecel badan yahay inaad sadaqa bixiso inaad quraan akhriso inaad soonto inaad salaad badiso yani aad xanta iyo waxyaabahaas oo dhan Ilaahay dartiis iskaga dayso waa maalmo Ilaahay gaar u ah waa maalmo sanadkoo dhan laga soocayo 10 waa maalmaha yani uu xajka jiro oo dadka ay sameynayaan acmaalo kala duwan waa maalmo naxariista Ilaahay soo degto 10kaas bari waxaan idin xasuusinayaa naftiina iyo nafteedaba inaan ka faa'iideysano inta aadayna Ilaahay u soo aqbalo amalada ay sameynayaan annagana Ilaahay ha noo dambi dhaafo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh